السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. guud ahaan macaamiishayada adeega online market meel kastoo caalamka ka joogtaan aad baan idiin soo salaamaynaa. salaanta islaamkaan isku salaamayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaanu joognaa gobolka Gabiley, gobolkii cagaarnaa ayaanu ku sugnay, maalmahan baanu ku sugnay anagoo markaasi alxamdulillaah howlaha iyaga shaqana bartan ka wadnay. aad iyo aad ba macaamiisha reer Gabiley u salaamaynaa galabtan amba waqti kasta idinka idin tahay videogan uu idin soo gaarayo aad baan idin salaamayna. meel kastoo aad joogtaan aad baan idin soo salaamayna. macaamiishayda 2000 ku sii dhow ee page-kayga ku taxan na aad iyo aad baan u soo salaamaya. waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin. dadyo kale ee fariinteedana soo gaari doontana waxaan rajaynaynaa inay runtii nagu soo biiri doonaan. maanta waxaan halkan u soo gelayaa barnaamij cusub oo shirkadda aan ku soo dari doono maadaama oo 2020 sanadkii uu noo soo gelayo wax yar ay nooga harsan tahay. barnaamij cusub oo aanu daha ka qaadi doono ayaan jeclahay inaan idila wadaago. barnaamijkaasi wuxuu noqon doonaa barnaamij dhex u ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaan cid kasta oo markaasi online ka ganacsata. barnaamijku wuxuu noqon doonaa barnaamijka xayisiis oo aanu ku sii dayn doono ummad kasta, cid kasta, qof kasta oo markaasi isagu sameeyay horumar amba dhaqaaq amba wax la taaban karo oo markaasi online ka dhexdiisa meherad ka furay, shirkad ka furay, wax walba ka furay inaanu ku xayisiino isla markaana maxaan ku alaabtiisa iyo dadkiisa aynu gaarsiino. barnaamijkaas u bixi doona qaab official ah oo dadkii khibradda u lahaa ay ka shaqayn doonaan runtii. barnaamijkaasi wuxuu noqon doonaa barnaamij lagu xayisiiyo ganacsigaaga haddii aad tahay qof shirkad ah oo alaabtiisa iibinaya amaba se ma garanaysaa qof isaga u baahan page-kiisa in loo xayisiiyo amaba se u baahan ma garanaysaa wuxuu hayay in caalamka ay gaadho inaanu anagu ku qabanayno anagoo waliba kuwa qabanna si free ah. waayo barnaamijku wuxuu noqon doonaa barnaamij ay shirkaddu soo saarto isagoo u bixi doona toddobaadle waxa lagu soo ururin doonaa guud ahaan dhalinyarta shaqaysata online ka dhexdiisa lacagaha ka samaysa si dadka kalena ugu daydaan isla markaana wax loo bedelo. waxa laga heli doonaa koorsooyin iyo dadka lagu training gareyn doono ciddii u baahan inay ganacsi online abuurto oo ummadda iyo dalkeega dadkeeda wax ku soo kordhiso oo beritoola ay uga tagto shaqaysato iskuna filnaato. waxaanu ku training gareyn doonaa ma garanaysaa qaabkii uu shaqaysan lahaa noqoto, siduu sawirada u soo qaadi lahaa noqoto, siduu fiidiyoada u duubi lahaa noqoto, siduu page-ka u samayn lahaa, siduu promotion gareyn lahaa, siduu ummadda wuxuu gaarsiin lahaa, siduu shirkadaha online-ka u heli lahaa, siduu ula shaqayn lahaa. waxaasoo dhan baanu baraynaa cid kasta u baahan, cid kasta oo diyaar u ah inay anaga nagu soo biirto ha noqoto ganacsato, ha noqoto dadyo kale online shopping ah oo jira. iyaga laftakoodana waa soo dhawaynaynaa, aad baan u soo dhawaynaynaa. memberna waa siinaynaa fursadaha aanu haynana way nagala qayb galayaan. dhalinyarta page-kayga ku taxan aad iyo aad aan u soo salaamayaa. fursadana qaaliga ana waxaan jeclahay inay ka qayb qaataan maadaama qof kastaaba maanta uu jecel yahay inuu naftiisa wax ka bedelo ummadiisana wax ku soo taro. waa laga yaabaa sanadkaynu soo socdo inuu noo noqdo sanad baraare oo inuu ka wada sheekaysan doono maalinka uu dhammaado hadduu ilaahay subxaanahu watacaala ogolaado inagoo isbedel fara badan muujinay. dhalinyarta aad baan u soo dhawaynayaa. barnaamijkaasi waa barnaamij aad u xiiso leh. dadyagu waxaan jeclahay inay kasoo qayb galaan barnaamijkaasi. waxyaabaha cajiibka ka maqnayn waxaa ka mid ah in ma garanaysaa qofka la siinayo shaqo part time ah uu helayo dadka membership-ka ka ah shirkadda oo ma garanaysaa uu ku shaqayn karo daily lacag maxaan ku dhahdaa commission ah lacag per daily u soo dhacayso oo shirkaddu ay siinayso shaqada loo dhiibtay haddii uu si fiican uga soo baxay isla markaas la rabay uu ugu shaqeeyo shirkadda. waa fursado qiimo leh oo runtii ku dhex jira barnaamijka. barnaamijka waxaa lagu abaalmarin doonaa dadyoga guulaystay ee horumarka sameeyey. waxaa lagu abaalmarin doonaa macaamiisha iyadoo bilo loogu abaalmarin doono macaamiilka ugu badan ee wax naga iibsata saddexda maxaan ku dhahay Somaliland iyo Soomaaliya iyo Puntland saddexdan wakiilada ku leenahay. wadanada kale iyaga laftirkooda in rajaynayna inaanu gaadhana iyaga laftirkooda ciddii joogta aan noqoto Kenya, Djibouti, Ethiopia oo hadda noo qoondaysan ciddii joogta ee iyaga online shopping ku aanbaba iyagu danaynaya inay wakiil noqdaana shuruuduhum buuxin doonaa waanu soo dhawaynaynaa. barnaamijkan aad buu qiimo u leeyahay dhalinyarta runtii cilmiga leh akademiga ah wax fahmaysa horumarka u diyaar kaalana waanu soo dhawaynaynaa waana jeclahay inay nagala qayb qaataan aad iyo aad. macaamiishada qiimaha lana aad baan u soo salaamaynaa. barnaamijkaasi waa coming soon sanadka cusub waa bilaabaynaa. fursado fara badan wuu wataa dhalinyarta waxaan aad u jeclahay inay gruubyada WhatsApp iyo Telegram-ka iyo
maxaan ku idhaahdaa ay ku soo biiraan oo ay nagala socdaan si barnaamijka aan ugu qaadaa dhigno oo aanu la wadaagno informationka dhammaantiin aadaan idiin soo salaamaynaa si qiimo iyo qaayala ayaan idiin soo salaamaynaa dhalinyarta horumarka jecel waa jecelnahay waa soo dhawaynaynaa cid kasta oo tale nagu kordhinaysa waa soo dhawaynaynaa cid kasta wax nala qabanaysa waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan idiin soo salaamayaa waxaan leeyahay barnaamijkaasi ha noqdo mid la isku arko hana noqdo mid aad ka qayb qaadataan oo aad fursadaha gunaale ka faa'iidaysataan walkum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu